mayerka dagmada GIBILEY ayaa dhagax dhigay wado 2 kiiloomitir oo casri ah xaafada GIBILEY sida warkaasi noogu soo diray wariyaheena MUUSE XUSEEN XASAN. mayerka dagmada GIBILEY oo ay weheliyaan xildhibaanada golaha deegaanka GIBILEY barasaabka gobolka gabilay iyo xogayaha fulinta ee dawladda hoose ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay wado 2 kiiloomitir isla markaana rooga taasoo laga hirgelin doono xaafada GIBILEY ee magaalada GIBILEY. mayerka magaalada GIBILEY ayaa ka warbixiyay wadadani isla markaana sheegay inay tahay mashaariicdii 2019 iyadoo noqonaysa wadadii 13aad ay hirgeliyaan golaha deegaanka GIBILEY muddadii ay joogeen. waxaanu halkan xaafada GIBILEY ka dhagax dhiganaa oo si rasmi ah loo dhagax dhigayaa wadadii 2 kiiloomitir ahayd ee aanu u qorsheynay golo ahaan in laga sameeyo xaafada GIBILEY oo ku jirtay qorshaha ama miisaaniyadda 2019 ee golaha deegaanku uu sameeyay ay ku shaqeyn doonto dawladda hoose. gudoomiye runtii xaafadan GIBILEY waa xaafadaha ugu ballaaran magaalada, waa xaafad intan dambe aad iyo aad u koraysa. waxaanu qorsheynay si isu socodka magaalada loo fudaydiyo, bilicda magaaladana aanu kor ugu qaadno, isla markaana dadka loo fudaydiyo xarumaha dawliga gaadhistooda inaanu halkan ka hirgelino wado 2 kiiloomitir ah oo nooca loo yaqaan rooga ah. wadadaas oo isku xidhi doonta dhammaan magaalada waxay ka soo bilaabi doontaa halka aynu joogno oo wadadii xabaalaha tagasay kuna beegan iskuulka GIBILEY ama xarunta agoomaha. waxay ka dhaqaaqi doontaa halka waxay ku xidhbaysaa wadada boodley bay ka sii dhaqaaqi doontaa, dabadeedna toos waxay ugu xidhbi doontaa wadada weyn oo ay kaga xidhbi doonto halka hoteelka u dhaxaysa booq iyo masaajidka imaaraadka. min halka ilaa halkaasi 2 kiiloomitir bay ay runtii noqonaysaa. 2 kiiloomitir oo rooga oo ay hirgelinayso dawladda hoose GIBILEY iyadoo aanu ka hirgelinayno runtii dakhligii dawladda hoose oo aan ahayn waxay cid inaga caawisay ama cid ay wax ku leedahay. halkan waxaanu sidoo kale ka furnay 4 xarumood oo cusub oo xarumihii dadka loogu adeegayay xanaanadii hooyada iyo dhallaanka. waxaa halkan inaga xigtaa xaruntii dhalinyarta oo aanu ugu talagalnay iyadana mustaqbalka in dhalinyartu ay waxa weeye ka faa'iideystaan oo dumarka lagu baro farsamada gacanta oo computer lab yaalo oo xarun ballaaran ah. waxaa halkan ku sii xigtaa sariimadii xaafada, waxa ku sii xiga saldhigii aan xaafada ka dhisnay. wadadu intaaba runtii way u dhaxaynaysaa oo dadku si fudud bay markaa xarumaha kala duwan ay u soo gaari doonaan. marka insha Allah taala waxaan jecelahay inaynu maanta si rasmi ah u dhagax dhigno isla markaana la bilaabo lagana faa'iideysto anagoo aad iyo aad u rajeynay inay wax weyn ay ka bedeli doonto si wadooyinkii aan horeba u dhisnay magaalada wax weyn ugu soo kordhiyeen. gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha golaha deegaanka, madaxa farsamada hawlaha guud, madaxa gaadiidka, bahda saxaafada, xildhibaanada, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta oo ay bishu tahay 23 waxaanu halkan maanta ku dhagax dhiganaa wadadii rooga ahayd oo ah wadooyinka casriga ah ee imika jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgalay in aanu u dhigno xaafada GIBILEY oo ah xaafada ugu ballaaran ee degmada GIBILEY, taas oo ah noogu jirto miisaaniyadii 2019 ee golaha deegaanku ay ansixiyeen. marka waxa weeyaan wax qabadadii iyo mashaariicaha iyagii hawlihii aanu u haynay degmada GIBILEY ayuun baan maantana ay ku jirtaa wax qabadkan iyo mashruucan ballaaran ee aanu ka hirgelinayna oo uu nagu hogaaminayo mayerka degmadu Maayor Maxamed Amiin. waxa halkan sida uu idin sheegay Maayorka waa halka nooga hirgalay mashaariic fara badan oo aanu ka hirgelinay xaafadan. waxay isku xidhaysaa oo si fudud u hirgelinaysaa markay wadadii kale ay jaam noqoto in wadadan si dhib yar loo tago xabaalihii oo marka laga soo wareego ama miskiid imaaraad ama booq waxa toos loo imanaya iskuulkii GIBILEY ama xarumihii agoomaha. marka waxa weeyaan wadaduna waxa ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha ee degmada GIBILEY. marka waxa weeyaan horumarka degmada GIBILEY ka tis qaaday ayay ka mid tahay mashruucan ballaaran ee wadadan rooga aan ugu
aanu ku qabanay afartii haad ee hore waxay noqotay wado bilicle oo soo jiiday sumcad golihii deegaanka iyo maamulka degmadaba imika tanna waxay noqon doontaa iyadoo aanu istiraatiijiyadii leerkana aanu raacin doono marka waxa weeyaan ilaa wadadani waxay saameyn ku yeelan doontaa in yeldo ay magaaladii ay gaadho wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu halkan maanta ku dhagax dhiganaa wadadii roogga ahayd oo ah wadooyinka casriga ah ee imika jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgalay in aanu u dhigno xaafada GIBILEY oo ah xaafada ugu ballaaran ee degmada GIBILEY taas oo ah nagu jirto miisaaniyadii 2019ka ee golaha deegaanku ay ansixiyeen marka waxa weeyaan wax qabadadii iyo mashaariicaha iyagii hawlihii aanu haynay degmada GIBILEY ayuun baan maantana ay ku jirtaa wax qabadkan iyo mashruucan ballaaran ee aanu ka hirgelinayna oo uu nagu hogaaminayo mayerka degmadu maayir maxamed amiin dhagax dhigana wadadii 13aad ee golaha deegaanku hirgeliyo intii golaha deegaanku joogay wadadana ku 13 wadadana waxay waa 2 kiiloomitir oo wadooyinka hore ka weyn tahay waxayna ka mid tahay wadooyinku isku xidhka bulshada ayay ka mid yihiin halkan maanta waxaan dhagax dhiganaa wado 2 kiiloomitir ah runtii waa wado aad u ballaaran iskuna xidhi doonta xaafada GIBILEY si toos ah waxaan leenahay markaa shacabweynaha ku dhaqan GIBILEY wadada marka la dhiso kadib ilaalinteeda iyo ka warhanteeda inta wax looga baahan yahay bulshada ku dhaqan GIBILEY xaafada GIBILEY si ay bilicda magaaladu ay u qurux badnaato gaar ahaan xaafada GIBILEY saad aragteen xaafada 18 May waxa laga fuliyay wada 1 kiiloomitir ah oo afar haada waxa weeyaan bilicdeeda iyo quruxdeeda cid walba way ogtay cid kasta oo degan way ogtay tanna waxaan u baahanahay in saas leeg ay u qurux badnaato gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay isla markaana ka mahad celiyay barasaabka gobolka GIBILEY maxamed cismaan xaaji axmed oo ku amaanay golaha deegaanka ee GIBILEY sida ay ugu dadaaleen bulshada ay mas'uuliyiinta ka yihiin runtii maanta halkan waxaynu ku dhagax dhigaynaa qorshihii wadooyinka ee runtii golaha deegaanka ee Maayorka hogaaminayo oo runtii kamid ah kaabayaasha dhaqaalaha in la horumariyo iyadoo golaha deegaanka ay runtii degmada GIBILEY iyo gobolka ka qabteen horumar badan tana waxay ka mid tahay qorshayaashii 2019 ee golaha deegaanku ansixiyeen maanta 2 kiiloomitir ee laga fulinayo ee wadada ay laga fulinayo xaafadan ama qaybtan GIBILEY runtii GIBILEY waxay ka mid tahay meelaha horumarkeedu ka socdo oo runtii magaaladuna ay ku sii fidayso oo runtii u baahan in kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegii kala bulshadaba ay gaaraan si culayska faraha badan leh ee magaaladu uu kala dego runtii maayirka iyo golihiisa waa ku amaanaynaa in ay hawlaha ay markaa qorsheeyeen maantana uu ka mid noqdo 2 kiiloomitir oo runtii 2 kiiloomitir oo ah noocii roogga ahaa oo runtii qiimo badan iyo dhaqaale badan ku baxayo runtii isku xirkaasina wuxuu keenayaa in adeegii bulshaduna uu fududaado dadkuna ay ku kala nafisaan magaaladuna bilicdeedii quruxdoodii ay runtii ay soo baxdo oo runtii ay noqoto magaalo dhinac walba isugu filan oo loo kala gudbi karo adeegina qayb walba laga heli karo marka runtii golaha deegaanka waxaan ku dhiirigelinaynaa annagoo ah maamulka gobolka inaanu had iyo goor garab istaagno ee wax qabadka runtii ay u qabanayaan bulshada iyo deegaanka runtii marka ilaahay waxaanu ka rajeynaynaa in 2 kiiloomitir iyo qorshayaasha kale ee qaranka uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in aynu ka mid dhalino si aynu gaarno yoolka iyo muhiimadda aynu u leenahay in aynu dhammaystirno adeegyada aynu qarankan u hayno waa MUUSE XUSEEN XASAN.